الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إلهي بaa mahadle. waxaa halkan isugu yimi guddida ilaalinta bisha Ramadaan oo wasaaradda diinta iyo awqaaftu ay magacowday oo ka baaraandigay aragtidii bisha dhammaan gobollada Somaliland oo dhanna ka xaqiijiyey bishii in la arkay iyo inaan la arag, isla markaana waddanada deriska inala ah ee aynu isku madlacan nahay iyadana warkeedii xaqiiqsaday. waxaa noo caddaatay berrito oo sabti ah inay tahay maalintii bisha Ramadaan aanay bilanin ee ay tahay maalintii aynu ku dhammaystiraynay bisha Shacbaan. berrito waa 30kii Shacbaan, bishiina lama arag. sidaa darteed berrito waynu dhammaystiraynaa bishii Shacbaan. maantana waa 29, berritana waa 30. maalinta Axadda ayaa ah maalintii koowaad ee bisha Ramadaan ee aynu soomi lahayn. ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu inagu gaadhsiiyo dhammaanteen nabadgelyo iyo caafimaad. ilaahayna subxaanahu wa tacaala cibaadadeeda iyo makfirada alla inoo furo oo aynu kulligeen aynu innaga oo mid ah ilaahayna karsiiyo qiyaamkeeda iyo taraawiixda iyo soomka iyo ictikaafka iyo dhammaan cibaadaadka kale ee ay bisha Ramadaan la gaar tahay. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ساعات وزير magacaygu waa Khadar Qulle, waxaan ka socdaa telefishinka qaranka Soomaaliland iyo radio Hargeysaba. idinku ka wasaarad ahaan iyaad soo xiganaysaan in ay Ramadaan aan ahayn? waxaanu soo xiganaynaa bisha Ramadaan. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi. aragti ku sooma, aragtina ku afura. aragtidii waanu baadi doonnay dhammaan gobollada dalka oo dhan. meel qura oo laga arkay ma jirto mar haddaan la arag. bishun ay 29 markeeda hore ay ahayd, waxa weeyaan waxaa waajib noqotay inaynu dhammaystirno. sidaa awgeed berri oo sabti ah waa maalintii 30aad ee bisha Shacbaan. sidaas